taliska booliiska Soomaaliya ayaa soo bandhigay haweeney saacadihii ugu dambeeyay si weyn u haysatay baraha bulshada. Haweeneydan oo lagu magacaabo Shukri Cabdullaahi Xaashi oo ahayd eedada gabadha jirdilka ay u geysatay oo lagu magacaabi jiray Sahra Cabdullaahi Maxamed ayaa saacadihii ugu dambeeyay si weyn u hadalhaysay baraha bulshada, waxaana la arkayay iyadoo jirdil xoogan u geysanaysa gabadhaas yar oo da'adeedu lagu qiyaasay ama la sheegay inay ahayd 9 sano jir. taliska ayaa raadis kadib iyo daba joogtayn waxa ugu dambeyn ay gacanta ku soo dhigeen waa taliska saldhigga degmada Daynile ee gobolka Banaadir inay u soo rogashay in eedeysanaas ay gacanta ku soo dhigaan. Maanta ayay booliisku soo bandhigeen waxa halkan shir jiraad ku qabtay afayeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doojishe waxa uu ka warbixiyay siday booliiska ugu soo rogashay haweeneydan la soo bandhigay iyo waxyaabaha ay ku hayaan. shalay 24 Sebtembar 2022 ayaa waxa baraha bulshada ku faafay video ama muuqaal la duubayay oo maamo jirdil ay u geysanayso qof dumar oo eedeysanayhi uu jirdil u geysanayo ilmo yar oo saqiir ah si arxan darro ah oo tacaddi ah oo bahalnimo ah ayay jirdil ugu geysatay cunuga yar ee saqiirka ah. saldhigga booliiska Daynile iyo hoggaanka baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa iskaashi baaris iyo dabagal dheer iyo iskaashi aan la leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay noo saamaxday in gacanta lagu soo dhigo eedeysanahaas iyo dhibanihii yaraa ee gabadha ah. eedeysanaha oo lagu magacaabay Shukri Cabdullaahi Xaashi ina hooyo Cabdullaahi Xasan Kaariye ayaa jirdil tacaddi ah oo si bahalnimo ah u dishay cunugaas yar oo saqiirka ah. baarista hordhaca ayaa noo cadeynaysa in jirdilkaas loo geystay cunuga saqiirka uusan ku ekayn kaliya midka baraha bulshada ku faafay, laakiin sida baarista aan ku aragnay waxaa jira jirdil ku baahay jirka gabadha yar oo saqiirka ah isla markaana noqon kara waxaa jiri kara tacadiyo kale oo aan qarsoon oo aan ishu arki karin. sidaas daraaddeed ayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gabadha yarta ee saqiirka ah ee lagu magacaabo Sahra Cabdullaahi Maxamed waxaan u haynaa referto dhaawac muujin ugu cadeynayno bal tacadiyada muuqda waxaan ahayn oo gabadha jirkeeda ku yaala oo kuwa la arki karaan ahayn haddii ay jiraan. fariin waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa in cid walba oo ku heeloon ama isla markaana ku tala jirta falalka noocaas ah aan cadaaladda horkeeni doono ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale oo ammaanku way idman yihiin la dagaalanka la tacaalka iyo ciribtirka falalka noocaas ah. waxaan kale ummadda Soomaaliyeed gaarsiinaynaa ugana digaynaa cid walba oo ku heeloon ama isla markaana ku guda jirta inay sabab ay ula yimaadaan garsoorka ama hay'adaha gacanta ku haya ay ula yimaadaan xeer dhaqan oo kiiskaas lagu xalliyo. ma jiri doono wax xeer dhaqan ah oo aan ka ahayn xeerarka iyo qawaaniinta dalka u yaalla oo kiiska noocaas lagu xallin doono. waxaan ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadaynaa cadeynaynana in eedeysanuhu ay wajihi doonto cadaalad isla markaana la horkeyn doono maxkamadda awoodda u leh. Anas Maxamed Soomane, Somali Cable, Muqdisho.